عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بعد بندي سلام يا فيديوغان waxaan kugu tusayaa yani qofka soo iska diiwaan geliya company-ga marka akoonkiisa san loogu furo waa inuu ma taqaanay sii diyaarsada halkii lacagtu ugu soo dhici lahayd sidoo kalena haddaad dad keentay oo labadii qof aad keensatay waa inaad sii diyaarsataa meesha ay lacagtu kugu soo dhici lahayd insha Allah marka talaabooyinkan aan sameynayo ayaad iga daba sameyn doontaa insha Allah daawasho wacan akoonkaaga marka san soo gashid waxaad tagi doontaa meeshaas baad tagaysaa saddexda calaamadood marka taabatid waxaa ku soo bixi doontaa sida tan waxaa kasii dooranaysaa meesha ku qoran tahay my earnings kadib markaa taabatid waxaa ku soo bixi doontaa sida tan soo socota sidan buu noqon doonaa markuu akoonkaaga cusub yahay sidoo kalena aanay lacago hore kugu soo dhicin oo doonaysay lacagtaadii koobaad aad sii diyaarsan lahayd kugu soo dhici lahayd sin markay kugu soo dhacdo waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay maxay transfer commission to credit wallet markaad taabatid waxaa kusoo bixi doontaa sida tan saddexda option ee yaryar baa kusoo bixi doona waxaad calaamadda saaraysaa tan ugu hooseysa taas baad saari doontaa kadib markaa saartay waxaad dhahaysaa save baad dhahaysaa kadibna continue baad sii dhahaysaa sidaas bay ayaad ku diyaarsatay meeshii credit wallet-ka ahayd ee lacagta kugu soo dhacaysay kadibna marka la gaadho maalinta khamiista halkan ayaa waxaa kusoo biiraya option la dhaho credit wallet kaasi lacagtaad kugu soo dhacaysa insha Allah. Assalaamu calaykum.